munaasabadan xariga looga jiray qayb cusub oo lagu soo kordhiyay isbeddelka hooyada iyo dhalaanka bulshakaab ee degmada Boocame ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda caafimaadka Puntland, wasiirka wasaaradda duulista hawada iyo garoomada Puntland, wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka, gudoomiye ku-xigeenka degmada Boocame, iskuduwaha ururada haweenka ee wasaaradda arrimaha gudaha Puntland, qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Puntland iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. qaybtan cusub ee lagu soo kordhiyay isbeddelka hooyada iyo dhalaanka ayaa waxaa si iska wax u qabsaa awooda dhistay shacabka degmada Boocame iyo dawladda Puntland, iyadoona ay wax ka bedeli doonto dhismayaashan cusub baahiyihii loo qabay dhismayaashan. Maryan Ugaas Cabdulaahi oo ah maamulaha isbeddelka hooyada iyo dhalaanka, iskuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Sool Cabdiraxmaan Cumar ayaa ka sheekeeyay faa'iidooyinka xarunta hooyada iyo dhalaanka ee degmada Boocame u leedahay deegaanka. sidoo kale waxaan rabaa inaan ka waramo guulaha aanu gaarnay 2019 registration-ka aanu qabanay ama MCH-ka u soo xarooday waxa weeye 8341 patient ah aanu helnay. sidoo kale dhismahan quruxda badan aad fadhidaan isna wuxuu noo hirgalay 2019 waxaa jira gaari aanu gadanay baahiyaha deegaanku qaba sida aan ugu gudbino qaybta gargaarka degdega ah. waxaa jira challenge ama caqabado MCH-ka wali ku xeeran ana wali gaarin aan doonayno inay naga caawiyaan dawladda iyo wasiirada iyo xildhibaanada hor fadhiya. waxa uu maanta shaqada la qabtay wasaaradda caafimaadka qabatay intaas oo sanad bay soo waday shaqaalaha caafimaadka ee degmadu markii aan hal qof buu ahaa niga Maxamed Buuxa maanta 14 qof oo MCH-ka baa jooga oo shaqaalaha caafimaad waa degmada magaalada gudaheeda kaliya marka laga yimaado deegaanada. iskuduwaha haweenka Puntland ee wasaaradda arrimaha gudaha Nadiifa Maxamed, Ugaas Maxamuud Ugaas Cabdulaahi, xildhibaan Cabdiraxmaan Muuse Jaamac, xildhibaan Axmed Xariir Gaas, wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda caafimaadka Puntland Faarax Maxamed iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka Puntland ayaa dhankooda u mahadceliyay intii ka soo shaqeysay inuu shaqeeyo xarunta hooyada iyo dhalaanka ee degmada Boocame. qaas ahaan haweenka wasiiradii baa ila socota wasaaradda haweenka soo dabcan marka labadaydu is xoojin doona qaybta haweenka iyo waayeelka iyo caruuraha insha Allah waxba baan ka qaban doona. wasiirka caafimaadka iyo wasiirada kaleba degmada Boocame waxa weeyaan inaad ku soo dhawaataan waa degmadiini waxa weeyaan baahiyaha ay qabtana runtii inaad waxa weeyaan wax lagala qabto. laakiin kaliya waxaan rabnaa inaan u mahadcelino oo runtii dhiiri gelino bahda caafimaadka ee MCH-ka gacanta ku hayay ee runtii maanta gaaray guushatan inta aynu dhamaanteen isugu nimid. aad iyo aad baan idinku hambalyeynaa waana idinku ducaynaynaa waxa aad qabateen insha Allah. sida wasiirkii hore wasiir ku-xigeenkii hore sheegayna waa sii wadi doonaa insha Allah. annana waa idinku garab istaagi doonaa insha Allah. baahi halka laga sheegay waxaan rabnaa insha Allah aniga iyo wasiirka oo xooga uga faradhuuban deegaanka biyaha iyo korontada horta anaga qaadayna insha Allah taala hadii Allah awood la idmo waxa ay noqdaan bil kasta. degmooyin badan iyo dhul badan baan MCH sida hadda meesha kale garfood ay kala ugu jirta marka laakiin waxa dheertihiin isku tashiga waxa kale dheertihiin midnimo badan oo hoose aan ogahay oo reer Boocame kaga duwan yihiin dalka oo ugaasku ugu horeeyo sabab Ilaahay uga dhigay iyo ugaaska hore dhintay aabihi Allah u naxariistee. waxaan marmar aan arkaa dad u hanqaltaagaya Hargeysa oo dhaha iyaga maartay mashaariic haya nana waxaynaba 20 kilomitir baan u jirnaa hal kiniini noogama yimaado xabad kiniini noogama yimaado. shaqadii anaga awan wasiila jibaarina insha Allah cabashooyinka hadda aan arkayna insha Allah waa qaadaya wasaaradda wada tagaya wixii anaga aan ka qaban karno iyo wixii aan ka kaalmeyn karno iyo wixii aan garab istaagin doono insha Allah waa ka wada tashanayna wasiirinta baalka ila jooga. runtii hadda baan akhrinayay sanadkii hore inta dad la caawiyay 8 kun runtii waa badan tahay alxamdulillah dhaha waan ku faraxsanahay horta in ka badan waa la caawin doonaa laakiin haddii si loo eego meelo badan baa ka fiicantii ragayho Ilaahay ku xamdiya alxamdulillah dhaha. wasiirka wasaaradda duulista hawada iyo garoomada dawladda Puntland Xuseen Cismaan Lugatuur Gibiley iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka dawladda Puntland Jaamac Faarax ayaa dhankooda sheegay inay wax badan ka qaban doonaan baahiyaha ka jira isbeddelka hooyada iyo dhalaanka ee degmada. arrimaha caafimaadka halka baahiyaha ku qoran
baahida talaagada hadday solar tahay wasiirka ballan qaaday haddii aysan solar ahayn aad mid caadi u baahan tihiinna insha Allah aniga ballan qaaday inaan bixiyo desktopka iyo printerka insha Allah bari baan idin soo dhiibi doonaa hadda laba MCH oo tusaale u noqon kara deegaanadan soo leeyahay gacan baa guduriya laga dhisay iyo meesha la yaar bogays horta waxaan ballan qaadayaa inaan ka dhiso anigu 10 kun oo horeeyana bixiyo waa run wixii halkaa la sheegay baahiya waa wax jira waa wax inta badan dalkoo dhan ka jira waxaase ilaahay mahadiya in xaruntan caafimaadka ay Boocame ay tahay xarun si fiican u shaqeysa muddo badan si fiican u shaqeynaysay ma hadana ilaahay ka soo waxa iska leh shaqaalaha caafimaadka iyo dadka reer Boocame oo iyaguna qayb fiican ka geystay Shamaakad Wada Jaamac warbaahinta dawladda Puntland Garowe